maalinta berri ah qof ugu dambayn afarta galabnimo qofkii aan isdiiwaan gelin xaq uma yeelanayo inuu murashax noqdo. guddiga doorashada madaxweynaha waxay u ahayd maalin shaqo oo adag maalintii labaad ee jadwalka diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. musharaxiintii ugu badneed ayay guddigu maanta qaabileen waxaana la diiwaangeliyey oo maalinta labaad shahaadada tartanka xilka madaxweynaha Soomaaliya qaatay ilaa 22 musharax oo ay ku jirto haweeney. musharaxiinta maalintii labaad la diiwaangeliyey waxaa ka mid ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iminka xafiiska jooga iyo madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale waxaa maanta si rasmi ah isu diiwaangelisay Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ah haweeneyda kaliya ee hadda u taagan xilka dalka ugu sareeya ee kursiga madaxweynaha. guddiga doorashada madaxweynaha oo howlaha diyaarinta doorashada ku jira ayaa waxa uu qaabilayaa musharaxiinta iminka u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee soo buuxiyay shuruudaha waxaana maanta ay qabteen howshoodii ugu badneed oo ay shahaadooyinka ay guddoonsiiyeen tiradii ugu badneed ee musharaxiinta. xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallim oo ka tirsan guddiga doorashada ayaa waxa uu ka hadlay howsha maanta guddigu ay qabteen isagoo tilmaamay in maalinta beri ah la soo gunaanadayo jadwalka diiwaangelinta musharaxiinta. waxaa maanta maalintii labaad inoo soo gabagaboobay diiwaangelintii murashaxiinta madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. maanta waxaa isdiiwaan gelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen gudoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle. waxaa sidoo kale aad la socotaan shalay inay 10 murashax ay maaragtay soo qadimeen murashaxnimadoodii isla markaana shahaadooyinka la guddoonsiiyey taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada ilaa hadda isdiiwaan gelisay 32 ama 32. sidaa darteed waxaa ka haray in dadku ay isdiiwaan geliyaan ama murashaxiintu ay isdiiwaan geliyaan maalinta berri ah. maalinta berri ah qof ugu dambayn afarta galabnimo qofkii aan isdiiwaan gelin xaq uma yeelanayo inuu murashax noqdo. sidaa darteed ciddii danaynaysa inay murashax noqoto waxaa lagu adkaynayaa in ay ka soo hormaraan berri afarta galabnimo si loo diiwaan geliyo. hawshu si wanaagsan ay u socotaa aad bay guddigu u shaqaynayaan diyaargarow fiican ayaa socda waxaana rajaynayaa hawshu inay sii socon doonto insha Allah berrina ay noogu soo gabagaboobi doonto si khayr ku jiro. laba maalin oo ay guddigu shaqaynayeen waxaa la diiwaangeliyey 32 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha. maalinta saddexaad ee diiwaangelinta waxaa la filayaa in la soo gunaanado oo ay guddigu soo saaraan tirada rasmiga ah ee loo diiwaangeliyey tartanka xilka madaxweynaha Soomaaliya oo ay musharaxiintu iminka shahaadooyinku ay qaadanayaan. waxaa mahad leh Allahiina abuuray mahadda labaad waxaa leh xildhibaanadii sharafta lahaa ee 20ka ii saxiixay. mahadda saddexaad waxaa leh guddiga doorashooyinka oo maaragtay doorasho hufan oo xalaal qabanayo oo ummadda maaragtay doorasho gaarsiinayo doorashada si fiican u qabanayo. intaas hadaan ka gudbo waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin meel kasta ay joogaan dhammaan waa salaamaya salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan u soo istaagay dana ani ii qaas uma soo istaagin waxaan u soo istaagay waddankayga inaan maaragtay dhibka uu ku jiro 30 sano inaan maaragtay ka saaro oo maaragtay u horseedo nabad iyo horumar iyo cadaalad iyo sinaan inaan u horseero oo shacabka Soomaaliyeed ee dhibban ee waddankooda ku dhibban inaan maaragtay nabad buuxda maaragtay ay helaan ay ku noolaadaan. arrintaas maaragtay u soo istaagay insha Allah waana ku guuleysanaa doorashada ilaa idinkiis waa ku guuleysan doonaa. ummadda Soomaaliyeed ilaa idinkiis wixii hadda ka bilaado nabad buuxda ay helayaan oo buuxda ay ku noolaan doonaan. waxyaabaha dhibaatada ugu horeysa waxaan ka qaban doono waxaa ka mid ah oo aan ka ballan qaadayaa inaan joojiyo oo maaragtay oo meesha ka saaro oo soo afjaro dhibaatooyinka hadda ummadda ay aadka u dhibsadeen ay ka mid tahay in qof Soomaaliyeed oo shacaba meel wadda iska maraya qaraxyada ay ku dhintaan shirqoolada shacabka Soomaaliyeed lagu dilo amnigo dhan gacan adag ayaan ku qaban doonaa insha Allah. waana amni ka bedelan dawladihii soo maray oo Soomaaliya soo maray oo ummadda ay maaragtay uga arki doonaa insha Allah aan keenayaa hadda sidii amniga lagu sugo aan ahayn magaalooyinkan hadda aan ku noolnahay Muqdisho iyo magaalooyinka kale. amnigan waxaan ka bilaabi doonaa magaalada Muqdisho waxaan ku xijin doonaa Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe muddo 5 bilood gudahood aan rabaa inaan intaas amni uga dhigo ilaa idinkiis waddanka oo dhanna waxaa hal san gudaheed inaan amni uga dhigaan rabaa. arrintaas haddaan ka gudbo
waxaan rabaa inaan fariin u faro ama aan maaragtay aan u sheego xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeed in maaragtay shacabka Soomaaliyeed ay dhiban yihiin ay u baahan yihiin wax dhibka ka saaro ee dhibkii ku daahay waxa kale u sheegaya maaragtay caruurta Soomaaliyeed boqolkii 40 in ka badan inay waxbarasho la'aan tahay dadkii aysan nolol haysanin aysan amni haysanin oo dhinac kasta ay ka dhiban yihiin marka waa inay maaragtay ay fiiriyaan dadkaas dhiban ee eheladooda ah iyo dadkii maaragtay oo ayaga soo doortay ee maaragtay ay matalayeen ummadda Soomaaliyeed dhan ay matalayaan marka ummadda Soomaaliyeed waa inay maaragtay arintoodaas aysan meel cidla dhigin insha Allah waa inay maaragtay arintaas maaragtay si fiican u fiiriyaan aysan waxyaabaha qaar aysan ka fiirin noloshooda iyo wax ayaga u qaaska ah waa ogyihiin laftirkooda hadda waddanka dhan waxay ka joogaan laba hotel oo la kala dhaho SYL ay ka degan yihiin iyo Al Jazeera hotel la dhahay degan yihiin ka socda ma ay laftirkooda amni u baahan waddanka dhan amni u baahan yahay arintaas insha Allah qof wax ka qaban kara ay wax kale uma soo istaagay ilaa idinkiis marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaa ilaa idinkiis inaan wada guuleysano maalmahan waxa socdaa waa maalmo kale oo dabcan taariikhda Soomaaliya ay horumar soo gaartay waddo dheer la soo maray dalku muddo dheer ayuu wuxuu ku soo jiray waxa la yiraahdo uncertainty yani waxaan la garanayn meel loo socday meel kale laakiin hadda waxaan isleenahay alxamdulillah ilaaha ma hadla meesha loo socdo waa la garanayaa maalmaha haray dadka Soomaaliyeed wakiiladoodu way codayn doonaan qofkii ilaahay xilka u garta ayaa qaban doona qofkii la doorta ayaa qaban doona laakiin maalintaas in la soo gaar ayaa muhiim ahayd waxay muhiim u tahay dimuqraadiyadda iyo dawladnimada iyo jiritaanka ummaddan waana maalin fiican waxaan rabaa inaan aad iyo aad u bogaadiyo dadkii Soomaaliyeed ee faraha badnaa ee dadaalka u galay in maalintan la soo gaaro hadday yihiin madaxda dawlad goboleedyada hadday yihiin madaxda dawladda ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa dadaalkii u sameeyay hadday yihiin guddiyadii kala duwanaa ee doorashada waxaan leeyahay hawl adag ayaa la soo qabtay dadkaas oo dhan mahad ha gaarto khaladaad iyo gaabis iyo cilado iyo waxba iska jireen laakiin alxamdulillah hadda way soo gabagabowday meel fiican ay maray wixii shalay inaan ku mashquulno maaha biriya noo taalo rabnaa inaan ka fikirno shalay wixii waay aragnimo iyo khibrad iyo aqoon u leh waa ka soo qaadanay baraan muxuu ahay ka fikiraynaa sidii aanu qurxin lahayn haddii aan la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin Soomaaliya hore u socoto guul waaye dadka Soomaaliyeedna wax yar u dhimana inta yar u dhimana guusha Ilaahay nabad ha ku dhameeyaan leenahay dadka Soomaaliyeed cadaalada deeqdo dadka processka iyo habka maamulayahay ha ka cadaalad faleenaan leenahay wax kale oo dhiba ma jiraan qofkii Soomaali oo xilka Ilaahay u garto dadka Soomaaliyeed wakiiladooduna ay u gartaan ayaana noqonaya madax kaasana muxuu la wada shaqayn doona hadii aan la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah anigoo ah musharax madaxweyne Cumar Cabdulqaadir Axmed Fiqi maantay waxaan soo gaaray xarunta guddiga doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan qaatay shahaadadii musharaxnimada waxaan aad ugu faraxsanahay in processkii doorashada uu soo dhawaaday insha Allah tacaala waxaan tagi doonaa 15 bisha hoolka doorashada shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul doorashadana waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahayna waafajiyo isbedel dhab ah oo bulshada iyo dalkan wax ka bedela oo dawlad xumada nasaahasatay oo muddada dheer soo socotay wax ka bedela oo isbedelkaas asaasiga ah marka xildhibaanada Soomaaliyeed ee sharafta leh ee matalaya shacabka Soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa inay shacabkooda u hiiliyaan waxaan ka rajaynaynaa inay ummadooda la saftaan waxaan ka rajaynaynaa inay ka xumaadaan duruufta dalku ku jiro iyo dayacaadda joogtada ah oo isbedelka dhabta u hiiliyaan waxaan kaloo xusuusinaynaa mas'uuliyiintii hore oo la isku bedelaa inaysan ahayn isbedel laakiin isbedelka dhabta ee loo baahan yahay uu yahay isbedel fikri ah isbedel aragti ah oo ka guuraya dhammaan wixii horay aan u soo marnay ha ahaado fikir kooxeed ha ahaado fikir group ha ahaado fikir urur iyo mas'uuliyiintii hore dalkan u soo maray oo aysan siyaasaddu naga noqonin wax recycle oo kala ah oo la soo celceliyo dad hore u soo fashilmay iyo aragtiyo hore u soo fashilmay marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa isbedel salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh